اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فولتير مفكرkii weynaa reer Faransiis ayaa waxa la weydiiyay jinsiga bini'aadamka ee hogaamin doona. Markaas wuxuu ku jawaabay bini'aadamka waxa hogaamin doona kuwa garanaysa wax loo akhriyo. Confucius filosofkii weynaa China ayaa wuxuu leeyahay aqligu waa sida caloosha oo kale. Calooshu waxay u baahan tahay tamar, energy si ay waxay u baahan tahay calooshu waxay u baahan tahay cunto si ay u hesho tamar, uga hesho energy ama tamar. Sidaas la mid ah aqliga wuxuu u baahan yahay awood kale oo taa ka duwan oo ah inuu wax akhriyo, inuu cilmi barto, inuu waxyaalo qofku maskaxdiisa kobcin karayo sameeyo. Akhrisku waa asaaska bulshadu. Akhrisku wuxuu kobciyaa garaadkaaga, garashadaada wuxuu ka dhigaa waayo-arag og wax badan. Akhrisku wuxuu dheereeyaa cimrigaaga, wuxuu ku nooleysiiyaa xilli aad hore u nooleen. Akhrisku wuxuu kobciyaa hal-abuurkaaga, wuxuu kobciyaa imaginationkaaga, wuxuu kobciyaa luqadaada. Akhrisku wuxuu kobciyaa kalsoonidaada, shakhsiyadaada. Akhrisku wuxuu ka dhigaa wax walba oo la sheegay inaad iska aaminin si indha la'aan ah. Dr. Lewis oo ah neuropsychologist jaamacadda Sussex wuxuu yidhi 6 minute aad wax akhrisaa waxay yareynaysaa stress levelkaaga 68%. Sidoo kale wuxuu yidhi akhrisku wuxuu yareeyaa xanuuno fara badan oo maskaxda ku dhaca sida xanuunka la yiraahdo dementia iyo Alzheimer. warbixin laga soo saaray Holland waxay leedahay qofka wax akhriya way fududahay inuu garto, inuu fahmo dadka kala dareenkooda. Cecilia Peterson oo Gothenburg University macalinka ayaa waxay xaqiijisay baaritaano dheer dabadeed inuu akhrisku yahay caafimaad. ayadoo sameynaysa 2 group oo xanuunsanaya, 2 qaybood u kala qaybinaysa ayaa qayb wax ku tiri wax soo akhriya halka qaybta kale tan wax soo akhrin. daatana waxay daba gashay ogaatay in groupkii wax soo akhriyay ay ka caafimaad fiican yihiin kuwa aan wax soo akhrin. xagga waxay ku xaqiijisay inuu akhrisku yahay caafimaad. dhakhtarada qaar ka mid ah sida Jarmalka iyo Ingiriiska dhaqaatiirta qaar ka mid ah waxay sameeyaan ama waxay qoraan si prescription ahaan qofka markuu xanuunsan daawo loo qoriyo, halkii daawada loo qoriyo ayay waxay u qoraan buugaag si inay soo akhriyaan. dhammaan culimada neuroscience ama maskaxda bini'aadamka ku takhasusay ayaa waxay xaqiijiyeen qofka wax akhriya qofka kale inuu ka maskax weyn yahay kana maskax fiican yahay. sida ognahay akhrisku waa asaaska bulshadu, waa qawaaniinta caalamiga ummad markay doonayso inay sameyso horumar iyo xadaarad ay marto. sidaan ognahay hay'adda UNESCO iyo hay'ado kala duwan ayaa waxay sameeyeen celcelis ahaan. waxay sameeyeen qofka Mareykanka ama qofka reer Yurub inuu akhriyo sanadkii 200 oo saacadood celcelis ahaan, halka qofka dunida saddexaad iyo Carabta joogana inuu akhriyo 6 minute celcelis ahaan sanadkii. qofka Mareykanka wuxuu akhriyaa 12 buug buu akhriyaa sanadkii. qofka Yurubiyaanka ah wuxuu akhriyaa 7 buug buu akhriyaa sanadkii. qofka bariga dhexe iyo Carabta iyo dunida saddexaad iyo dunida Islaamka oo dhanna wuxuu akhriyaa celcelis ahaan safxad ama page markii loo qeybiyo 4 qayb, hal qayb oo ka mid ah ayuu akhriyaa. wasiirkii hore ee difaaca Israa'iil Nicolas Moshe Dayan ayaa marba waxa la weydiiyay dagaaladii ka dhaxeeyay 700meeyadii ilaa 600meeyadii ayaga iyo Carabta ka dhaxeeyay ayaa waxa la weydiiyay waay mar walba uu guuleysto ama naqshada u dhigo istiraatiijiga askariga in mar walba guuleysato. markaas wuxuu yiri anigu waxaan garanayaa in Carabtu waxba akhrin, hadday akhriyaan aynana fahmin, hadday fahmaan inay ku camal falin. jariirada la yiraahdo Huffington Post ayaa waxay dabagal ku sameysay dad fara badan oo noloshooda guul ka gaaray, hadday tahay dhaqaale iyo cilmi iyo qaybo kala duwan. sidaan ognahay Bill Gates oo ah aasaasaha Microsoft
ugu dhaqaalo badan caalamka milyardheer ah caalamkana dhowr sanadood hogaaminayay xagga dhaqaalaha ugu horreeyey ayaa wuxuu akhriyaa 50 buug buu akhriyaa sanadkii nin la yidhaahdo Warren Buffett oo ah kaalinta saddexaad maanta ku jira magarasa xagga milyardheerka xagga lacagta caalamka ama tartanka ama ninka saddexaad oo ugu taajirsan caalamka 2008 noqday ninkii ugu horreeyay ayaa waxa la weydiiyay waay guusha inta la gaaray markaas buu wuxuu yiri anigu waxaan akhriyaa markii su'aasha la weydiiyay markaas buu wuxuu sameeyay buug buu kor u qaaday buu yiri waxa guusha gaarsiiyay waa kan taasoo macnaheedu yahay inuu maalintii waxa la sheegay inuu maalintii wax akhriyo 500 ilaa 1000 page inta u dhaxaysa ninka la yiraahdo asaasaha Facebook yani Mark Zuckerberg ayaa in badan uu kamid wax akhriya iyo dad fara badan oo kamid ah dhamaantood dadka noloshooda guul ka gaaray ayaa waxay caadi u leeyihiin dhaqan u leeyihiin dhamaantood inay wax wada akhriyaan sida wada ognahay waajibkii ugu horreeyay ilaahay waajib inaga dhigay wuxuu ahaa inaan wax akhrino Jibriil markuu la kulmay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ugu horreeyay waxyigii ugu horreeyay ku soo dejinayay ayaa wuxuu sameeyay ku yiri gara akhri wax akhri markaas waliba soo gelgelaya ku adkeynaya u sheegaya muhiimadda ay akhrisku yahay sidaa daraadeed muslimiintu muddo yar kooban ay waxay ku noqdeen caalamku inay hogaamiyaan hadday tahay dhaqaale hadday tahay siyaasad hadday tahay cilmi hadday tahay xurriyad hadday tahay cadaalad iyo hadday tahay awood islaamku waxa ashcaartiisa ama shicaarka islaamka waxa kamid ah ama astaanta islaamka waxa kamid ah akhris sababta waajibkii ugu horeeyay lagu soo dejiyay wuxuu ahaa inaan wax akhrino Margaret Fuller waxay tiri dadka maanta wax akhriya waa leaderska waa hogaamiyaasha Britole sidaa daraadeed waxaan la wadaagi doonaa buugaag fara badan oo aan soo akhriyay buugga ugu horeeya waxa weeyaan ciwaankiisu yahay 5 waxyaalood ay ka shalayaan dadku markay dhimanayaan ay ka qoomameen dadku markay dhimanayaan buugaagta aan la wadaagi doonaa waxa kamid ah buuggan aad arkaysaan oo ah waxaad noqonaysaa waxaad ka fikirto waxa kale oo idin wadaagi doonaa buuggan oo ah 7 dhaqan ay leeyihiin dadka saameynta leh 7 caadood ay leeyihiin dadku saameynta leh waxa kale oo idin wadaagi doonaa buuggan oo ah fikir si aad u noqoto qani fikir si aad taajir u noqoto waxa idin wadaagi doonaa buuggan oo ah ciwaankiisu yahay erayo ayaa waxay bedeli karayaan maskaxdaada hal eray aad isku sheekayso hal eray aad isku tiraado hal eray oo dadka ku tiraado ayaa waxay bedeli karayaan maskaxdaada waxa kale oo idin wadaagi doonaa buuggan oo arkaysaan waxa kale oo idin wadaagi doonaa buuggan oo ah 13 waxyaalood ayna dadka adag aynan sameeynin sidoo kale waxa idin wadaagi doonaa buuggan oo arkaysaan ciwaankiisu yahay sidoo kale waxa idin wadaagi doonaa buugaag fara badan